midi waa ta ugu horeysa oo ah gobolka Sool degmada Laascaanood oo xoogaa aan badnayn oo dad la yara ma jira habaabiyay ay rabshado laamiga dhagxaan ku turtuureen marka ugu horeysa dadka reer Somaliland ee gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood waxaan moodayay inaynu ka runtii si fiican uga dhereegsanahay rabshado iyo cida rabshada wada inaanay waxba noqon dad badan oo aan dhibta wadin inay ku dhaawacmaan ama ay ku waxyeeloobaan marar badan magaaladu dhaqaale ahaan way korisay hay'aduhu waa ku soo socdeen kharash badan iyo hanti badan oo magaalada laga dareemay ayaa ku socday deegaanku iyo ummaduba marka Laascaanood hadda lagu sii dhow yahay ama la tago waxa la dareemayay in magaalo ay Laascaanood noqonayso marka la eego hoteelada furmaya maqaaxiyaha guryaha laga dhisayo ganacsiga socda waxa muuqatay in ay magaalo hore u socotay tahay ana waxaan leeyahay war magaalada yaan dib loo celin oo dadka magaalada ku degan yaani dib u celin oo yaan naftiina iyo maalkiina iyo hantidiina inaad dhowrataan oo mas'uuliyadda idinka leh xaq u leh dana nin shakhsiya oo dana wata ama meel jooga ama maamul kale ka tirsan ama dibad jooga waxa Laascaanood ka jira iyo waxay soo martay kama warayo aad waxaan ugu boorinayaa dadweynaha reer Somaliland ee gobolka Sool degmada Laascaanood xitaa qofka wax dareema de wado loo maraajid waxaan leeyahay wadada rasmiga ee qof kasta uu ku gaarayo xaqiisa u mara violent iyo dhagax tuur wuxuu magaalada u dhimo mooyay wuxuu soo kordhinayaa ma jirto waxaan mar labaad iyo mar saddexaad dadka ka codsanayaa inay dadku aynu ka waantowno oo aynu ogaano yani waayo aragnimadeennii hore ay ina ku filan tahay aad iyo aad baad dad u mahadsantihiin odayaasha iyo dhammaan dadka iska xilqaamayna mahad iyo sharaf iyo karaama noo hayna aad iyo aad baanu muddadii hawshaa jecetay annaguna dhanka iyagaanu kaga jiray oo kolley wanaag baanu kaga jiray haddana wanaag baanu kaga jiri doonaa waxalla waxaa xukuumadda dhankeeda diyaar baanu u nahay inaanu dhammayno qodobka labaadaan ka hadlaya waxa weeye weerarkii qaawanaa ee Puntland kusoo qaaday gudoomiyaha gobolka Baran waxaa leeyahay waa galiyey waa geesi istifaaci ummadda reer Somaliland oo dhanina way dhinac taagan tahay hadday golo wasiiro tahay iyo hadday golayaasha qaranka tahay iyo hadday dadka Somaliland jecel tahayba waanu ku barbar taaganahay ee shaqadaada wado waxa wixii aad dalka iyo dadka uga baahan tahayna waanu kula garab taaganahay waxaa tahay nin ummadda reer Somaliland oo dhan garab taagan tahay garabkaagu wuu buuxaa waxaanuna runtii aad ku tashataa ina aad dal iyo dawlad iyo ummad ku taageeraysa leedahay hore u socodaan ku leeyahay aad iyo aad baanu kuugu mahadinaynaa inaad dalka iyo dadka iyo ummadda reer Somaliland ba isku darto oo dalkani noqdo mid dhowrsoon oo xuduudihiisa iyo maamulkiisa leh.